degmada Celifina galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmadaasi waxay sameeyeen banaabax lagu taageerayo doodda ictiraaf raadinta ee ka dhacday golaha baarlamaanka dalka Ingiriiska waxayna shacabweynaha kala duwan ee degmada Celifin si qiiraysan u ruuxayeen calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo aanu kala hadhin madashani waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay bulshada qaybaheedii kala duwan ee ku sugnaa madashani xildhibaano waayeel iyo waxgarad iyo marti sharaf kooraad u tiro badan insha Allah berita waxaan rajaynaynaa in la yiraahdo Soomaaliland waa la ictiraafay cid farmaajana waxa leenahay amar wax ka tar habeen walba waxaad qarxinaysaa oo siyaasadaadii gelisay inaad dadkaagii wax garadka ahaa ee dhiigu isugu ka taalala ee Soomaalida ahaa ee nin kasta wax garad aad dilayso dadkaaga u tali haddii aan soo dhawaysan waan soo dhawaynaynaa haddii aan fogaanayna waan idin fogaynaynaa sidaas baa inoo xeeraa sheeganaa beesha caalamka Soomaaliland waxay buuxisay shuruudihii loo baahnaa waxay qabsatay 5 doorasho waxaan inagu dhammaan isku dhan u dirinaa baaq mahadnaq ah xildhibaanka geesinimada iyo kartida la yimi ee baarlamaanka Ingiriiska geeyay qadiyada Soomaaliland xukuumadda taagta daran ee Soomaaliya waxaan leeyahay walaalayaal kala quusanne aan kala qooma laano difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland anaga u taagan hadaan nahay ciidamada qaranka ciidana waxba kuma sameyn karto Soomaaliland ma aha waxaan afka kale nahay qalbiga ayaga ku qorantay dadka halka tuman baan idin cadeynaya xukuumadda walaweyn ee farmaajada waxaan leeyahay meesha taqriiban mawda ka hay maraara dilaac qarax sida marfaca qadiyada Soomaaliland waxay tagtay meel aan la qarin kalin waxaan kale halkan uga hambalyeynaya ergeyga gaarka ah ee ictiraaf raadinta Soomaaliland adna aadan دكتور أدنى آدم iyo wasiirka arrimaha dibadda iyagana si gaar ah halkan uga saar Soomaaliland waxay gashay 5 doorasho oo hal iyo cod ah marka doorashada Soomaaliland qabato ayaa la weegi doonaa farmaajo maanta waa maalin weyn ilaahay ictiraafka hayna ku guuleeyo Soomaaliland reer maahe waa dawlad waa qaran Soomaali oo dhan u dhan tahay weeye laakiin qadiyadeedu waa muqaddis taayadu waa muqaddis caalamkuna uu kala og yahay 26 Juun baanu qaadanay 1960 maxaan ku dhahay doorasho qof iyo cod ah baynu 6 jeer tii lixaad baynu galaynaa daadeer Soomaaliya wax isugu keenay anigu garan maayo waxaynu halkan isugu nimi inaynu ugu mahad celino xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ee qadiyadeena keenay golaha baarlamaanka keenay kaga hadlay waa mid 60kii inaga luntay aynu la soo noqonay maxaa leeyahay walaalaheena xamarna waxaan leeyahay war walaalayaalow aan kala nabad galno ilaahina hadda taqaanay gabagabadina waxa halkaasi bulshada degmada Celifina gobolka Sanaag kala hadlay maayir ku-xigeenka degmadaasi Maxamed Jaamac Liibaan Hindi iyo waliba maayirka degmadaasi Maxamed Aadan Digaale waxa runtii aad iyo aad marnaba aan la ilaaweyn oo mahad celinteena maanta koow aynu siinaynaa dhammaan inta soo martay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland wasiiradeeda oo u dambeeya wasiirka maanta haya iyo adna aadan Ismaaciil oo har iyo habeenba u heelana inay qadiyada iyo madax banaanida iyo horumarka Soomaaliland gaarsiiyaan halkii looga baahnaa waxaan isleeyahay Gavin Williamson ma gaadeen haddaan wasiiradaasi har iyo habeenba u heelanayn haddaan madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi aanu ka dhabaynayn dimuqraadiyad oo bogaadin u diraya oo u mahad celinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xildiid oo halgan habeen iyo maalin aan ka fadhiisan sidii Soomaaliland ictiraaf u helayd dhammaan baarlamaanka Ingiriiska iyo cid kasta ictiraafkeena inala garab gashaba waynu mahad celinaynaa waqtigii hore ee 60kii ka horeeyay intayna South Soomaaliya ayna isku darsamin oo aynaan agreement ku galin waxaynu ahayn laba dal oo kala madax banaan agreement baynu galay waxbaynu ku heshiinay wixii aynu ku heshiinay way socon waayeen haddii aynu markaa kala noqonay deeq maynaan sameeyne horta yaynaan moodin inaynu ka goonay laba dal baynu kala nahay